maanta meeshaan waxaan ku joognaa dadkii madaxda reer Mandera County ahaan governorga MPyalka 6 constituency madaxdii hore iyo wixii siyaasi ahaa oo Mandera ka yimaad kulli iyo senataga kulli waan meeshaan joognaa waxaan maanta isku nimaanay waxay tahay inaan ka hadalno arinta ka jirta Mandera County qaas ahaan Mandera East gobolka Mandera East oo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo oo ka soo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada inaan cambaarayno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandera ama meel kamid county Mandera haddaan ahnay madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba waxaan u sheegaynaa Cabdirashiid Janan iyo inta taageersanbo inay county Mandera iskaga baxaan oo aadaan meel alla meeshii laga soo dhaweynayo maahan sharci maahan dad hubeysan inay wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahayn inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhax dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan hadii ku soo laabtaan dadweynaha meel ay ka qoranta malahan hadii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qorihooda ay ku wareejiyaan booliska Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo dagaalka iskiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu degsiga badan soo sheegay walaalkay kulay Mandera dib baa ka taagan dibkana wuxuu ka yimid dhinaca Soomaaliya arin ka dhaxayso dawladii federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaa saameynaysa marka waxaan oo maqala oo maartay Mandera arkayaan dad wasiirina iyo madaxweyne ku xigeenah ayaa degan hotel Mandera ku yaalo ciidankii bulxa oo degna oo Jubaland waxa lagu sheegay waxay joogaan burburu xuduudkii Kenya ay ku dhaxyiraan marka arin halis waaye Mandera dib ay ku sugan yihiin laga yaabo in maaragtay ciidankaasi kan bulxa oo joogo kan Mandera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaan in maaragtay laga dhigo meel maaragtay soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo nimankan joogaan oo Cabdirashiid Janan kan wasiirka leeyahay Mandera lagu sheegay Mandera joogo inuu ka baxo magaalada in ka baxo dadkii taageerayna haday tahay dawladayna inay ka baxiyaan meel ay geey karaan hageeyaan laakiin laga saaro Mandera ma ogolin marna dhulka in laga dhigo meel maaragtay dagaal ka dhacay oo maaragtay anaka dib loo geeyin doono dadweynaha reermada waxaan leenahay madaxdiina anaka waa taariikhsanahay marna dadkani wayna ka qaydina aan dhahna marka laga saaro waxaan leeyahay marka dawladda Kenya inay taageersantahay la sheegaya waxaan ka codsanaynaa sharciga adduunka ma ogolo dad hubeysan inay ku soo dhulka soo galaan oo ku joogaan haday soo galaan in maartay laga qaado hubka laga qaado laajiin noqdaan hadii asilna si rabana asilna wax la soo qaado hal si Nairobi hal geeyo laakiin meelahaas ay xuduudka laga fayo ma ogolin waxaan leenahay ma inay ka baxaan degdeg Mandera ka baxaan to anigu waa Governor Ali Ibrahim Roba Governor Mandera sida walaalayaasheeda ay sheegeen maanta waxaan ku kulanay Nairobi mas'uuliyiinta reer Mandera wax ka maqnaamay ma lahayn arinta ugu weyn oo maanta iskugu imaanay waxay ahayd arinta hadda ka socoto border Kenya arintaas oo ah in mar dhow dawladda federaalka Soomaaliya ay u soo dirtay askar federaal ah inay Gedo region qaybo kamid ah ay mas'uuliyadda dhinaca security-ga iyo administration-ka ay la wareegaan taas oo ka imaaday dhibaatooyinka ka taagan dawlad goboleedka Kismaayo iyo dawladda federaalka annagoo mas'uuliyiinta reer Mandera tani xilligii madaxweynihii hore Allah u naxariistay Siyaad Barre uu haystay wadanka Soomaaliya مسؤولين Mandera iyo shicibkaba maadaama aan jiraan lanahay ummadda Soomaaliyeed oo walaal aan nahay meeshan isla deganahay faragelis maanan sameeynin mas'uuliin hadaan nahay jiraantinimada baan dooraynay dadaan gacan siinay dhinaca walbaba ma aysan jirin waxaan ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral dadaan moogtay ku xiriirsaneen hal dhinac marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u hayay Jubaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay laga soo bixiyay oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb kamid ah magaalada Mandera ay degan yihiin arintana annaga
wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya anagoon rabin arinta inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxa muhiim ah oona anagana saaran mas'uuliin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga ummadda reer Mandera iyo ummadda kale walaalyaasheena jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku noolnahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraan nahay arinta hadda waxay keentay iska horimaasho aad u adag oo ka socota dhinaca ciidan uu wato ninka wasiirka Cabdirashiid uu wato iyo ciidamada federaalka Soomaaliya oo hadda beled xawla wareegay iyo doolo la wareegay waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe Kenya aan ka codsano inay boqolkiiba ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan ay ku dhaqdaan dadka haday hub la soo galeen in hubka laga dhigo hadii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale oo dowladda isku caawin karto dadkaas oo haday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka u sii jeediyaan beled xaaw kuwii beled xaaw joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandera taasoo dhib u keeni doonto shicibkan anaga mas'uul ka nahay haday gaarto amniga ummadda reer Mandera qaasatan sida guudna aan mas'uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dul qaadan karno anagoon ikhtilaafsaneen dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacan ma siinayno waxaan rabaa in sida ugu degdeg badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kale oo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan shicibka Manderana waxaad ogaataan mas'uuliyiinta oo dhan boqolkiiba boqol way taageersan yihiin arinta amniga ummaddaanada wax walbo amniga wax u dhimayna boqolkiiba boqol waan ka soo horjeednaa waxaana rabnaa dowladdeeni Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu degdeg badan wixii u dhaxeeyo moogtahay dhaqan wadaag ah ay hagaajistaan laakiin annaga waxa noo daran laba ummado jiraan ah oo col annaga shicib ahaan beled xawana ka imaanin Manderana ka imaanin in lagu soo xawilo ummadan ay meesha moogtahay xasilooni dhibaato weyn ay kala soo gudboonaato meesha arinta waxaan rabnaa inaan ka codsano sida ugu degdeg badan dowladda Kenya inay dadka meesha ka saaraan ciidanka meesha soo fariistana ka iska horimaasho ayaga shicibka intana imaanin ka hore waxaan rabnaa inay sida ugu degdeg badan meesha ka guuraan because uma dul qaadan karno mana qaadanayno waa arin aad u adag oo nu dul qaadan karin hal naf oo dib u ka soo gaaro arinan aan meesha ka imaadanaga aan ogeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahirrahmaanirrahiim aniga ciid waa Meja Bashir xildhibaanka Mandera laga soo doortay waxaan u maleynayaa hadallo badan kuma daraya arrimo ugu muhiimsan waxa waaye waxaan rabaa inaan dowladda Kenya iyo dadka security qalbsan inaan u sheegno annaga haddaan madaxdii nahnay ma ogolaanayno dad hubaysan oo waddan kale ka imaaday inay dhulkayni iyo countigayni isku cambaareeyaan oo hub meeshaas kugu keenaan oo la isku hanjabo oo colaad meesha ka dhacdo annaga waxaan ognahay Kenya ciidamadeedu waxay jiraan Soomaaliya waa la ogyahay annaga Kenya ahaan goormaan ogolaanay ciidamo ka imaaday Soomaaliya inay dhex joogaan ma ogolaanayno fursadaasna fursad oo ku salaysan sharcina ma soo anaga waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka bixina dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno marna TFG iyo federal government hadaa isgabsan yihiin ayaga u taala marka annaga hadaan reer Mandera dowladda Kenya waxaan ku leenahay arintan shaqo weyn laga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha lagu bixiyo hadaad ku bixin waysaan de shicibka annaga ma celin karno banaanbax bay sameyn doonaan ayaga dadka qaban doono ayagana bixin doono taas inay gaarto ma rabno soo waxaan leenahay si degdeg ah dowladda shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha laga saaro al-shabaab baan haystaan haddana ma ogolaanay dad kale oo hubaysan inay soo galaan yaa kale yaqaan waxay yihiin hadhow marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanay bari ma ogolaanayna waa inay naga baxaan